si qaawan baynu wada hadli doonaa haddii hadalkaa la qaadan waayo la kala joogi waayo gaar ahaan warshada muxuu ahaayey maxamed aw siciid oo dadka lagu kicinayay intii yareedee laga adkaaday waxaanu leenahay si qurux badan magaalada u jooga idin xumayn mayno idin caayini mayno laakiin waxaanu leenahay war magaalada iyo horumarkeeda iyo tijaarta waxaan halkan muxuu ahaayey ka soo jeedinaynaa maqaal ama muxuu ahaa aanu kala hadlayno dadweynaha magaalada berbera oo ayaamahanba ay rag ku daba jireen ay rabeen inay kiciyaan oo warshadaha iyo muxuu ahaa horumarka cusub ee ka soo bilaabmay magaalada u bilaabmaya ee shaqo abuurka keenaya gaar ahaan warshada muxuu ahaayey maxamed aw siciid oo dadka lagu kicinayay oo la leeyahay warshadaasi pollution ama muxuu ahaa qiiq ama muxuu ahaayey dikhow bay ku samaynaysaa magaalada iyadoo muxuu ahaayey ay la leen tahay oo 100 mitir isu jiraan warshadayna xarbi ee qamandida shaqo abuurna ay keenayso 2,000 oo qof oo shaqaalaha reer berbera ay ka qoran doonto iyo wax ka badanba markaa nimanka waxaan uga digaynaa muxuu ahaayey ka soo jeeda rejiimkii dhacay ee muxuu ahaayey doonaya inay muxuu ahaa warshada khalkhal geliyaan oo dadka ku kiciyaan waxaan uga digaynaa inay muxuu ahaayey arrintaa faraha kala baxaan tallaabana aanu ka qaadi doono waxaa la yidhi nin baa yidhi sidii hore moodo ha lagu dilo marka waxaan leenahay sidii hore arrimuhu maahe ka digtoonaada warshada uu leeyahay maxamed siciid geedi waxaan leenahay war industrigu ama warshaduhu dalka waxay u keenaan waa shaqo abuur waana wax soo saarkii dalka markii hore warshada meesha laga qotobinayana dowlad iyo nidaam iyo dowlad hoose iyo procedure iyo wasaarad ayaa meesha ogolaansho u bixisay intaa jiri intuu warsad hor ray meel iskamu deginin waxa weeye maamul dhan oo dalku lahaa ayaa halkaa u astaysay hadday khaldaneeda dowladdii baa khaladay waxaanu leenahay war arrinka halkaa laga wadaa waa arrin siyaasadaysan raggii rajiimkii dhacay ee shalay maamulka dowladda hayay ee dowladdii ay mas-uulka ka hayeen ee xisbigii ka talinayeen waxba ku tari waayey ayaa nin baaci mushtari oo production samaynayo oo wax soo saarkii dalka qayb ka qaatay ayay waqtigan ka dhigteen gabood ay difaac ka dhigteen oo doonayeen inay xumeeyaan iyadoo lagu khaldayo ama lagu maagayo qofku xuquuqdiisa aasaasiga ah inuu qofku doono taageeri karo waxaanu leenahay waanu idin arkaynaa waanu idin garanaynaa sax iyo maan baanu idin garanaynaa nimankiina waxaa abaabulaya ka jooga baanu idin leenahay waanu idin digina si basarle uga fadhiisto magaalada dowladda iyo doorashada dalka u dhacday ee 64 uu madaxweynuhu ka helay wax laga dheexan karayaa in aqlabiyadii dadka Soomaaliland ay isbedelka u qodaysay intii yareedee laga adkaaday waxaanu leenahay si qurux badan magaalada u jooga idin xumayn mayno idin caayini mayno laakiin waxaanu leenahay war magaalada iyo horumarkeeda iyo tijaarta yaan la farafuraynin gaboodna yaan laga dhigan ninkii siyaasad doonaya ama mucaarado doonaya xaq uu leeyahay mucaaradada muxuu ahaayey ha raaco xisbigiisa ha bilaabanto toosintiisa ha sameeyo cidna u diidi mayso laakiin yaan hantida gaarka ay dadku leeyahay yaan la carqaladaynin si qaawan baynu wada hadli doonaa haddii hadalkaa la qaadan waayo la kala joogi waayo dadka waxaa wada waanu garanaynaayo si qaawan baanu wada hadlaynaa halana kala xishoodaan leenahay hala joojiyo magaalada dhibaatadeeda magaaladu waa magaalada infrastructureka stateka 100% baa ka samaysan haamihii dalkaa ka samaysan dekadii baa ka samaysan wadooyinkii waaweynaa baa ka samaysan madaarkii labaad ee dalkaa ka samaysan